transitionka ama kala guurka siyaasadeed ma laga gudbi karaa annaga Soomaaliya maxaa naga qosay qeybaha dambe oo dhigaynaa laakiin isbedelka aan ka warrami kara aniga geeska Afrika isbedel weyn kama dhicin Ethiopia baa isbedeshay aniga waxaan isleeyahay horta wax weyn oo heshiis uma jeedo runtii saddex dawladood isku tagtay Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia mid walbana waxa laga yaabaa ujeedo gooni inay leedahay laakiin marka u daadego kulamada la isku yimid iyo statementiyo kooban oo aad u kooban oo gaagaaban oo ka soo baxay marka laga tago wax kale xoog kama hayno saddexda dawladood igad ay ka tirsan yihiin oo maadaama igad ay ka wada tirsan yihiin African Union ay ka wada tirsan yihiin waxay gooni iskula baxeen ayaga ma cadaynin oo waxa saddexdooda gooni ay luuq u galeen ay dhaheen anaga saddexdeenan waa ka soocanahay gobolka intiisii kale lama cadaynin midda labaad waxaan la sameeynin structure lama sameeynin markii oo heshiis noocaan abuurmayo ama hadda sida madaxweynaha uu ku fasiray economic integration isdhexgal siyaasadeed ama sida dadka qaarkood ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ka dhawaajiyo isdhexgal siyaasadeed waa uu yiri waxay tahayba anaga ma hayno structure qaab dhismeed waa structure qaab dhismeed ma laha ururada noocaana ama heshiisyada noocaana markii la isugu imaanayo qaab dhismeed ay leeyihiin secretariat ay qabaan documenti hagay leeyihiin shirarka soo socda sida loo qabanayo ku cad minutes ka soo baxaa la publish gareeyaa oo la sheegaa ujeedka loo sameeyo objective-ka ama hadafka loo sameeyo la cadeeyaa ciday u furan tahay waa la sheegay ciday ka xiran tahay sababaha loo sameeyay waxaas oo dhan hadda anaga ma arkinin meel lagu soo bandhigay waxaan aragnaa kulan laba jeer dhacay statement ka soo baxay intaas wax ka dheeriya ma arag waliba dawladeena si xoog uma fasirin oo hadda marka laga reebo ra'iisul wasaaraha Ethiopia dhowr jeer ka hadlay iyo madaxweynaha Eritrea interview bixiyon akhriye aniga telefishinka wadankiisa oo la yeeshay qaybta oo Ingiriiska intaas wax dheeraad ah kama marka ma dhihi karno waa hanaan ama qaab structure oo isku tag ah oo dhab ah anigu ma dhihi karo ilaa aan waxaas arko waxaas marka aragtaa la qiimeey kara waxa dhabta hadda waa isku tag marka dadka fasira waxay leeyihiin ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed maadaama oo marxalad kala guur oo ku